Horyaalada Somalilan oo muddo ka socday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxaa loo gudbayaa wareegga 16 kooxood, kaas oo ay isku arki doonaan kooxaha ka soo gudbay kulamadii hore ay lahaayeen. Ilaa iminka kooxaha xaqiijiyay gudbitaanka wareegga 16 waxaa ku jira kooxda Maaliyadda Burco, Dowladda Hoose ee Hargeysa, Goodir Hargeysa, Xidigaha Cirka ee Hargeysa, Dowladda Hoose ee Berbera, Goodir Burco, Goodir Gabiley, Goodir Saaxil, DB Wall, Maaliyadda Ceerigaabo, Dowladda Hoose ee Wajaale, Asluubta Ceerigaabo, Dowladda Hoose ee Burco. Kooxaha Gaashaan Hargeysa iyo kooxda Goodir ayaa iyagu waxay sugayaan kulanka galabta ay la ciyaari doonaan kooxda Gaashaan ee Hargeysa, kooxda Asluubta Ceerigaabo, kuwaas oo gruubkan ilaa iminka haysta 3 dhibcood. Haddii Gaashaan Hargeysa laga badiyo, waxaa soo baaxi doonta kooxda Goodir Saraar, sidaana waxaa ku hadhi doonta kooxda Gaashaan ee Hargeysa. Haddiise Gaashaan Hargeysa ay badiso, waxay noqonaysaa inay iyadu u soo gudubto wareegga xiga ee 16. Waxaa la sugayaa in 16 kooxood ka qayb galaan. Ilaa iminka 2 kooxood baa la soo dallacsiin doonaa oo ka qayb geli doona horyaalada Somalilan. Kooxaha rajada leh waxaa ka mid ah kooxda Wasaaradda Beeraha ee gobolka Awdal iyo Dowladda Hoose ee Ceerigaabo, oo labaduba ka mid noqon kara 16 kooxood ee u gudba wareegga 16 kooxood ee horyaalada Somalilan. Kulanka galabta ayaa isaguna kala saari doona in kooxda Goodir Saraar ay gaadhiga raacdo iyo in weliba kooxda Gaashaan Hargeysa ay iyadu ku noqdaan caasimadii. Haddii kooxda Asluubta ee magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ay galabta ka badiso, kulankana natiijadiisa waa sugi doonaa oo qadar kooban inaga xigo.